aad baan kuu soo dhaweynayaa waana kaaga mahadcelinayaa qayb qaadashadaada barnaamijkan waxaad tahay afhayeenka ciidamada Amazon oo kufsi iyo tacadiyad u geystay dumarka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan gabdho yar yar oo 12 jir ah warkii ay soo saartay hay'adda xuquuqul insaanka maalintii Isniinta ahayd arrinta maxaad ka ogtahay adigu walaal horta waad mahadsan tahay arrintaasina sida aad u maqasheen baan u maqalnay waana soo gaadhay aad baan uga xunnahay arrimaha caynkaas oo kale inay dhacaan waxaan se kaleenahay iminka ahaan annagu wax haba yaraatee arrintaasi dacwad oo naga soo gaadhay oo eed nalaga sheeganayo moojaane tu aan annagu maanta hubno oo wax kasta way dhici karaan nin kasta xorriyad buu leeyahay oo ku hadlo hay'adaasi waa hay'ad aad aan u qiimeynayno sharafteedii leh hay'adda Human Rights Watch reportka samaysay waxa si cajiiba magaca Amisom ina caynka loo fashiliyo oo loo eedeeyo maaha annaka dambi aan leenahay uun baan qabanaya haddii ay soo wareysatay oo ummadda waxay ka soo maqashay in la khubsado oo ninkii laga cabanayo la dhageysto weeyaan hadalkaygu waa cad yahay haba yaraatee arrintan wax magacannaka wax noo dhimaya maaha wax sharafteeda meel kaga dhacayo mana jeclinaysaa rallo waxaad moodaa inaad danaynaysid magaca Amazon inaad difaacdid oo sumcaddooda aad waardiyeysid markay gabdhaha yararka Soomaaliyeed xerooyinka Burundi iyo Uganda ay intay xabadda foorka ka saaraan 10 ay u fuulaan xataa ay diideen inay condom xirtaan sumcadda aad ceshanaysid oo waardiyeysanaysid maysan gabadha Soomaaliyeed sumcad ka mudnayn adiga haba yaraatee waxaasoo kale wax dhici karaya maaha boqolaal dumara iyo gabdho leh oo ragna leh iyo maalin kasta xerooyinka ciidamada Amisom lagu daweeyaa oo dhakhtar xitaa u yimaada meelo badan u yimaadiin baa jirta cases hore sidaas oo kale naloogu ceebeeyey waan ka daba tagnay annaka iyo dawladda Soomaaliya wasaaradaheegu waan u fadhiisanay guddi baa loo sameeyey waa la baaray baaritaankii wax ka soo baxay waa la ogyahay waxaan jecelahay haddaba sidaas oo kale inta aanan sidaasaa jirta iyo sidaasaa jirta la oran in annaka inta nala eedeyn nala ogeysiiyo iyaa ficnayd annagu cali raalli noqo markaad leedahay in nala ogeysiiyaa ficnayd ma waxaad doonaysaa in inta dhegta lagugu sheegay idinku aad xeer hoosaad ku xalisaan sida sumcadda Amazon aysan u xumaaninin mise hay'adda xuquuqul insaanka aad ku tuhmaysaa inay been sheegayso maxaa yeelay kaysaska ay report gareeyeen waa kuwa ay la hadleen dadkii dhibaatadu soo gaartay xerooyinka Burundi iyo waxayna ka dhaceen Uganda waxaan jeclaynaa ku akhriyo mid iyo laba ka mid ah dumarka ay kufsadeen ee faraxumeynta u geeyeen waxay ka soo qoreen haweeney Soomaaliyeed oo magaceeda ayaana lagu soo koobay ayaa ka mid ahayd dadkii xerada tagay subaxyada ka mid ah ayada oo doonaysa daawo u raadinaysa ilmo yar ay dhashay waxaadna qiyaasi kartaa maadaama barakacayaasha ay ka mid tahay inaysan qadaynin quraacan baad qiyaasi kartaa laakiin xanuunka ilmaheeda haya ayaa xerada geeyey markii xerada ay tagtayna dhafoorka ayay ciidamada Burundi waxay ka saareen xabad dabadeedna ayagoo guruuba ayay fuuleen banaanka ayayna markaa u soo direen banaanka markay u soo baxday ayay banaanka intay soo bixin dhinaceeda waxa kale oo lagu kufsaday saddex kale oo dumara oo isku meel lagu kufsaday saddexdaasna waxa loo geystay jirdil markay diideen in la fuulo oo hilibkooda ceeriinka lagu boobo ay diideen jirdil bay u geysteen ciidamada Burundi halkaas saddexda dumarka mid ka mid ah ayaa dhaawacii jirdilka iyo kufsiga ay u geysteen awgeed istaagi kari weyday dabadeedna gabdhihii kale ayaa soo qaaday xerada banaankeeda markay yimaadeenna ciidamadii kufsaday waxay sameeyeen arrintan foosho xun ee wuxuushnimada ay soo socota arrintaas waa inay siiyeen xoogaa yar oo boorasha oo ku jira bac yara iyo in yaroo cookie waxay yidhahdaan ama biscuit ah iyo $5 waxaana lagu yiri cidna ha u sheegin in arrinta dhacday arrintaas inaysan dhicin ma adigu sheegaysaa waxaasoo dhan waxba kama jiraan see ku ogaatay inay waxba ka jirin waxba kama jiraan see ku ogaatay alo
ma adaa xerada joogay see ku ogaatay cali hallo waa ku maqlaa xerada miyaad joogtay see ku ogaatay inaysan jirinin waxa weeyaan anu mar kastaba waan hadlayaa laakiin meel kasta wax ka dhacaan ma joogo waxaan see ognahay meel kasta oo subax kasta situationka jira reportyaal na soo gaara waa jiraan nin kastana oo meeshaa joogay wuxuu og yahay xeerka adag ee sugaya qaban doona haddii waxyaalaha tacadiga caynkaasa uu sameeyo uu bani aadanka meel kaga dhaco soomaalidu waxay leeyihiin xeer gaara dhaqan gaara oon dadka usoo sheegno ka dhaadhicino dumar iyo xoolaba soomaalidu inay aada u qiimeeyaan khaasatan cali waxaan ku weydiiyey dumarka iyo xoolaha waa usoo noqonaynaaye adigu sidee ku ogaatay ciidamada Uganda iyo Burundi inaysan kufsanin oo arrinta human rights-ku ay sheegayaan ay been tahay seed ku xaqiijin kartaa arrinta adigu anigu waxaan ku xaqiijinayaa waxaan sameynaa commission baan sameynaa waxaan sameynaa ergo fadhiisata oo meesha wax laga soo sheego maadaama haddii ay wax jiraan amisa madaxdeeda African Unionka yaa la soo gaarsiin lahaa isla markaaba waxaa jira sharci la qabanayo ninkii tacaddi caynkaas geysta sharcigii qabanayo uu yaala su-aashan ku weydiiyey waxay ahayd adigu sideed ku ogaatay maadaama aad noo sheegtay barnaamijkan intaanu ku guda jirnay xero walba inaadan joogin oo waxa ka dhacaya aadan ogaan karinin seed ku ogaatay inay human rights-ku been sheegayaan oo gabdhahan masaakiinta saqiiradu ay ku jiraan iyo hooyooyinka tobanka loo fuulaya ay been sheegayaan ciidamada Amazon ay run sheegayaan ciidamada Amazon ma qaldami karaan ma oranayo waxaan se imika la sheegayo waa nala ogeysiin lahaa waa nalaga wargelin lahaa inta fashilaada caynkana la samayn xeerkii qabanaya wuu jiraa dad aanan qaldamin ma jiro qof uu qaldami karaa laakiin arrintani kutirikuteen bay u badan tahay cali kolley waa ra'yigaaga kutirikuteen waxaan u malaynayaa arrintaas inay caro gelinayso malaayiin Soomaaliya oo banaanka joogta waxaa tiri Amazon waa dad la xisaabtamaya waxaan ognahay dawladda Soomaaliya inay tahay dawlad aan awood lahayn haba yaraatee wax jurisdiction ah oo ay ku leedahay ciidamada Amazon aan lahayn idinma amri karto wax idinma sheegi karaan waxaad idinku doontaan baad fulisaan dawladaha idinku aad ka timaadeen ayaana mas'uuliyadiina qaadaya dawladda Soomaaliya waa midaan awood lahayn aan ka hadli karinin falalka foosha xun oo kufsiga iyo tacadiyada iyo jirdilka ay sameeyaan taasina waxay idin ogolaanaysaa inaad qarisaan ciddii markaa dhibaato keento dhagteen wax leen kugu sheegaa doonaysaan haddii aan arrintan ku akhriyo si degdega waxay sheegeen human rights watch doogu inay jiraan kaysas badan oo horey laydinkugu keenay ay ka mid tahay gabadhii yarayd ee 12 sano jirtay ee askariga Ugandayska uu fuulay banaanka magaalada Baydhabo ama geesaheeda meel ah ilaa iyo haatan ninka maxkamad aan la soo istaajinin maxaa yeelay maxkamadii ku taalay Uganda ay lahayd ee magaalada Muqdisho ku taalay waxa loo raray dalka Uganda loo raray sidaasna taasina waxay dhalin kartaa in ciidamadu waxay sameeyaan wadankooda lagu qaado gabadha yarna weligeed aysan cadaalad helin adiguna aad la taagan tahay ciidamada Amazon waxba ma kufsadaan haddana aad leedahay meel walba anigu ma joogo wax ma ogi timahaagu dhinaca wada xirmaan waad mahadsan tahay hadalkuna wuxuu leeyahay xiisadiisii buu leeyahay baan u malaynayaa laakiin lama qaldami karo baan ku iri qof kasta uu qaldami karaa baan ka iri laakiin qaladkii aan ogaanay waxbaan ka oranaynaa sharcina waan la tiigsanaynaa baan ku iri dawladda Soomaaliyana waan kala tashanaa waxaan qaadanayno laakiin dawladdu awood ma lahan علي دولته أود كمالها عيدمada Amazon wax jurisdiction ay ku leedahay dawladda Soomaaliyeed ma jirto haba yaraatee dawladda Soomaaliya waa dawlad la garanayo oo iyadu meelo kale ka hadli karaysa haddii ay ciidamada Amazon ay amarkeega qaadan weydo meelo ay ka hadli karayso waa jiraan waa bogtihiin waa dawlad caalamku maanta xaqiiqsan yahay kursi kasta oo ku fadhiisato way leedahay meel kasta oo hay'ad kasta ay tagto haddii Amazon ay sida ay Amazon u timid amba ay wax ka qabto waxay ka sheegan karto meelaha ay ku sheegan karto iyo sharcigii ay ku sheeganaysay wuu jira taa la iskuma hayo imika waxa weeyaan
wixii hadday wax dhaceen ujeedada aan murtida meesha inaan ka gaarsiiyo dadka aan doonayo iyo xiisada Soomaalida maanta maskaxdooda la gashay inaan ka dajiyo aan doonayo Ali maysan gafku hayna tiraahdo xiisad weeye markii walaasha la kufsaday gabadha Soomaalida waa walaashay weeyaan cod ay ku hadasho maanta ma lahan xerada Uganda joogta ama Burundi 20 kan in ay fuulayso adiguna aad leedahay wax jira maahan marka aad leedahay waa xiisad maahan waa xaqiiqo jirta hay-adaanuna waa hay-ad credible ah oo dunida aqoonsan tahay waxay been ugaga sheegaan ciidamada Amazon ma jirto marka inaad tiraahdo waa xiisad ayada laftigeedu maysan gaf iyo meel ka dhac kugu ahayn adiga ana Soomaalida inaan meel kaga dhaco ma jecli marka gabdhaha Soomaaliyeed la kufsado ma ku danqanaysa adiga hay'adani maanta qalab iyo gaf bay ka gashay Amazon haddii ayna arrintan oo kale ay iyadoo ogeysiin fashilada caynkan ay geysanayso isku dir iyo dib iyo laga dhaxalkaya Ali waxaad moodaa inaadan waxyaalo badan la soconin oo aad ka dhacsan tahay hay-adanu waxay tagtay headquarterkiina Addis Ababa ayay tagtay reportkan oo buuxana farta laga saaray laakiin adigu lama socotid baan u maleynaya waan la socdaa reportkan aad sheegaysaa maxaad hadda u leedahay nalooma keenin oo kama warqabno nalooma sheegin oo waa nala fadeexadeeyay intaan reportkan la sii daynin headquarterkiina la geeyay headquarterka marka la geeyo waxa jirta investigation buu sameeyaa ciidankan Amazon isaguna wuxuu leeyahay inquiry board buu sameeyaa arrinta waa ka tashanaa waxna waa ka soo dhiibaa laakiin kiis kale hore idin kugu maqnaayo gabadha yarta 12 jirtay ee Baydhabo magaalada Baydhabo lagu kufsaday askarigii 2000 kufsaday ilaa ay haatan maxkamad lama soo taagin faylkiisii unbaa maxkamadda la keenay kalsoonida lagu qabi karo ciidamada Amazon ee dawladaha banaanka jooga maxkamadaha ay wax ku saarayaan waa mid aad iyo aad u daciif ah Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed aan u cuntami karin iyo dad badanba dadka Soomaaliyeed maanta abaal badan bay ku leeyihiin Amazon abaal badan bay ku qabtaa shacabka Soomaaliyeed oo wax badan bay ka taageeraan maanta arrinka caynkani hadduu dhaco wax weeyaan xal loo helayo Soomaalidu caaday lahayd dhaqan bay lahayd xeer bay lahayd laakiin foolxumada intan leegi foolxumo loo dul qaadan karayo maaha baan ku leeyahay waxaan ogol lahayd maaha inay dhacaan waxa weeyaan wixii laga ka badbadisinay meesha ku jirto taasi waa hubaal weeyaan waxaan anigu akhrinayaa reportkii ay soo qoreen baan hayaa asagoo videona mar dhowaan soo deynaya asagii qoran oo waxbana lagu darin baan hayaa marka waxa ay sameeyeenna waa wax ayagu ay soo qoreen oo ay sheegeen case kalaan ku akhrinayaa oo xanuun fara badan ku haya dadka Soomaaliyeed adigu laakiin laga yaabo maaragtay sidoo dadka u dhibay inuusan ku dhibaynin maxay yeelay shaqadaadu waxay tahay oo lacag lagugu siiyaa askari aad ku tahay inaad difaacdid sumcadda iyo karaamada ciidamada Amazon oo marnaba aadan dhaliil iyo aad u soo jeedin dabcan waxa ka mid ah caseska lagu eedeynayo hooyo Soomaaliyeed oo kale oo iyaduna dhibaatadaas oo kale haysatay ayaa waxay timid xerada iyadoo baryaysa raashin ama dawarsanaysa inay maaragtay la siiyo raashin iyo daawo dabadeedna nin Soomaaliya oo turjumaya ayaa wuxuu ku yiri waxa timaadaa xerada qaybta dambe ima oo daawada laga bixiyo markuu halka ay timid gabadhii hooyada ahayd oo dhibaataysneed oo cuntada bariyaysa ama dawarsanaysa maqsin baa la yiri gal maqsinkii markay gashayna waxay u gashay nin Amazon oo doonaya inuu kufsado oo moodayay in la soo diyaariyay oo ayaduna diyaar ay u tahay inuu kufsado ma waxa leedahay arrintaas uma jirto